السلام عليكم أخيارتي شرفت لوان إذن سلامي كسو دواذا جنن كيغ سومال رويال كوكن مقعيقوا مريان waxaan idinku soo dhaweynayaa qalbi furaniyad saafiya maanta maxay ka shidan tahay maanta waxay ka shidan tahay macmacaan laga sameeyo qumbo saan ayuu noogu suurtagalay daawasho wanaagsan meeshaas waxaa noogu jira subag meeshaas waxaa noogu jira wax yar oo maxaan ku raahdaa waranga ah meeshaas waxaa noogu jira haaf sokor ah koob haafkiisa sokor ah meeshaan aad u jeedii waxaa noogu jira 2 bakeeri oo qumbihiya meeshaan kale tood waxaan ku haysanaa 2 bakeeri oo caano ah faniila yar aan ku soo carfisanayaa waa kana bismillaah subagiyaan ku shubta birti waa kana oo noo soo kululaanayaa waxyaraan sugaynaa intuu noo soo kululaado yaraan sugaynaa saxaabay oo noo soo kululaaday oo noo soo kululaanayaa marka insha Allah intuu noo soo kululaanayo waxaan sameynaynaa 1 iyo 2 aan ka hadlaynaa qumbaha marka qumbaha aad iyo aad u fudud yahay aad iyo aadna aragtida ugu qurux badan yahay waxaan ku soo shubay bakeeriga koowaad kii labaadna waa ku soo xijiyay sad u jeedaanba 2 bakeeri saan ayaan birta ugu shubay waan walaaqayaa waxaan idin sheegayaa haddii aadan walaaqin hoos wuxuu ka yeelanayaa kuuskuus wuuna gaduudanayaa waa kana hadda waxaan ku soo shubayaa sidaad u jeediin waa warangadii yareedoo qaadada ahayd aanan ku soo shubay aan ku soo daray waa kana soo jeedii waxaan ku soo daray sokorti aan ku soo daray waa kana wixii dhan oo soo dhameynaya caaniya ugu dambeeyay oo ku soo daraya waa kaskoobka labaad aan ku soo daray saa u jeedaanba saxaabay ila socod wanaagsan qumbaha waxaan rabaa inaad idinka aad ka warkeenteen aad u qurux badan yahay marka insha Allah waa kana walaaqaha ka joojina haddaad walaaqa ka joojisiin wuu idinka gubanayaa inuu idinka gubto ma rabo maxay ahayd isheeg dabka maxay ahayd meel yar oo dhexe ayaad uga dhigaysaa qumbe qofka xalwo kari taqaano maba dhibaayaba laakiin qofkan xalwo kari aqoonin ayaa u baahan waa kana saan ayuu noogu soo suurtagalay marka insha Allah filimka ma idinka jooji doono ilaa aan ka dejiyo sababtaas oo idinkaga waxay tahay ma rabo inuu idinka noqdo si qalad ah oo aad tiraahin oo qalado igana maxay maba ii sameysbinba marka waxaan rabaa sidoo aniga iigu suurtagalay inuu adigana kuugu suurtagalay insha Allah waxaan rajaynayaa inuu sidoo aniga iigu suurtagalo oo adigana kuugu suurtagali doono waa easy waxaan ku dhigi karaa isheeg markaad suubinayso qumbaha qofta suubi taqaan ayaa og marka maxay teed badan ma qaato wax yar 5 daqiiqo aan u malaynayaa waxaan dhamay inuu dabka saaraa doono 5 daqiiqo oo dabka saaraana adiga iska dheh waa kana waxaad ku garan kartaa inuu bislaaday waxaad ku garan kartaa wuxuu ka soo deynaa digsiga dabadiisa oo ka soo fuqaya ma ku dhaganaanayo kulli hal meel isugu imaanaya waa kaasa bal fiiri haday iyo had isku mid miya maya isku mid maahani waa kaasa haday kulli wuxuu birta oo maxay kulli ku wada sameysnaa laakiin hadda uu ka soo fuqay meel isugu tagaya waa kana ka soo degsanay san ayaan u sameeynaa qumbaha waa kana meeshaas ayaan ku soo dhameystiranayaa markaan ku soo dhameystirto oo si fiican maxaan ku raahdaa isheeg aan u soo kuuskuuso dhammaan markaan saxankaas iskugu geeyo waxaan sameey doonaa wax meesha dhexe yaala waxa waaye maxay ahayd qumbo aan saxan ku soo diyaarsaday sidaad ogtiin qumbaha markii ma aragtay haddana qumbaha kale saas korka loogu waxeeyo wuxuu sameynayaa aad iyo aad ayuu u qurux badnaanayaa sababtoo ah hadda waxaa ka muuqda kariskiya ka muuqda markaad qumbaha ku gadgadiso wuxuu yeelanayaa qurux shayni ah indhaha soo jiidanaysa hadda idinka la idinka rabaa inaad ka soo jawaabdeen oo tiraahdaan qumbihii waa macaan yahay iyo waa kan inaad comment ka soo bixisiin idinka la idinka sugayaa aniga maxay ahayd sheeg waa kariska ayaan leeyahay comment bixiskana idinka iskale
marka akhyaarta sharafta waa kanaha saas quruxda badan la ayuu noo soo noqday saad u jeedaanba waxaan sameynayaa haddana insha Allah hadduu ilaahay raali ka dhigo markaan saas u kuuskuuso oon soo dhammeeyo xabadda ugu dambeysa aan meesha soo saaro ayaa waa kanaha weelkaanan soo qabsaday saan ayaan maxay ahayd u soo saaraya si qurux badan oo maaragtay cun oo ku dhahayo indhaha waxaa la yiri wixii ishu haysa ilaala ka dham aad iyo aad ayuu u qurux badan yahay aad iyo aadna waa u macaan yahay macmacaankan maasha Allah tabaarakallah dadka way jecel yihiin ilmaha way jecel yihiin marmarka qaarkood waxaan ku dhihi karaa adi naftigaaga macaanad u baahan tahay maadaama aad qof weyn tahay laakiin badanaa ilmaha ayuu u wanaagsan yahay dadka waaweyn xoogaa maaragtay macaan sokorta marmar inaa iskaga tuuratid ma ahane si kale maxay ahayd ii sheeg ma marka walaalahayga waa kana saan quruxda badan la ayaan ku soo dhameysaad u jeediinba maxay ahayd sooma qurux badna maasha Allah tabaarakallah soo maahanin ilaahay waxaan ka baryaa intaan haysan inuu ilaahay siiyo maanta fiidiyogeena intaan ayuu ku egyahay intaan fiidiyogan fiidiyo lamida aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu